kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada wararkana waxaa ka mid ah golaha shacabka Soomaaliya oo maanta ansixiyay matalaadka gobolka Banaadir oo ku yeelanaya aqalka sare ee dalka guddiga doorashooyinka qaranka oo ku dhawaaqay inaysan doorashada waqtigeeda ku qaban karin madaxweyne Farmaajo xildhibaanada golaha shacabka uga mahad celiyay ansixinta 13 senatar oo gobolka Banaadir ku metelaya aqalka sare ee dalka maamulada Puntland iyo Galmudug oo iska kaashanaya arrimaha amniga iyo horumarinta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug qodobadaas iyo qodobo kale ayaad daawan doontaan mar kale ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dalka mar kale kulan wanaagsan aan ku bilaabay golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxay ansixiyeen matalaadka gobolka Banaadir oo ku yeelanaya aqalka sare ee baarlamaanka dalka xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa ansixiyay xeerkii matalaadka aqalka sare ee gobolka Banaadir oo maalmihii u dambeeyay ay ka doodayeen kulanka golaha shacabka oo ay soo xaadireen 146 mudane ayaa 142 mudane waxa ay u codeysay in gobolka Banaadir uu ku yeesho aqalka sare matalaad dhaba kaas oo ah 13 senatar waxaan natiijada codeynta ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Muuse Sheekh Cabdiraxmaan natiijada sidaan ayay u dhacday hal la dhageysto soo jeedinta guddiga ay soo jeediyeen waxaa ka aamusay ma jiraan waxaa diiday 4 cod waxaa ogolaaday 142 cod ogolaaday sidaas waa saxsan tani ayaa waxa ay ka dhigan tahay in aqalka sare tiradiisu ay gaari doonto 67 senatar halka markii hore uu ahaa 54 senatar oo maamul goboleedyada ka socday guddiga doorashooyinka qaranka ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inaysan doorashada xilligeeda ku qaban karin gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari ayaa baarlamaanka waxa ay ka horjeedisay warbixinta doorashada 2020-2021 kaas oo ahaa mid la wada sugayay gudoomiyaha Xaliime Yari ayaa waxay cadeysay doorashada habka diiwaangelinta ay ku dhici karto muddo 13 bilood gudahooda taas oo laga bilaabayo bisha July sanadka 2020 isla markaasna ku eeg bisha August 2021 waxaan halkaan idin la wadaagi doonaa si kooban natiijada daraasadda laba ka mid ah hababka diiwaangelinta kuwaas oo aan u aragnay in lagu hirgelin karo doorashada dalkeena mudane gudoomiye guddiga waxaa waajib ku ah inuu dhaqan geliyo sharciga doorashooyinka ee uu ansixiyay baarlamaanka madaxweynuhuna saxiixay kaas oo qooxaya nooca diiwaangelinta ee dalku yeelan doono oo ah ku diiwaangelinta codbixiyaha nooca biometriga loo yaqaano iyo howlihiisa la xiriira noocan diiwaangelinta iyo howlaha la xiriira ayaa waxaa ka mid yihiin in la soo iibiyo qalabka diiwaangelinta codbixiyaha oo runtii shaqadiisu ay meel fiican noo marayso in hay-adaha amniga xaqiijiyaan xarumaha lagu diiwaangelin karo codbixiyaha oo la sugi karo amnigooda in la fuliyo wacyigelin ballaaran si dadweynuhu uga qayb galaan isdiiwaangelinta in la geeyo qalabka iyo shaqaalaha diiwaangelinta xarunta diiwaangelinta in dadweynaha la diiwaangelinayo oo ka qayb galaya doorashada in si rasmi ah loo diiwaangeliyo soo saaridda liiska codbixiyaasha oo rasmi ah qaybinta kaarka aqoonsiga codbixiyaha diiwaangelinta rasmiga ah ee xisbiyada siyaasadda diiwaangelinta musharaxiinta ololaha doorashada qabadashada doorashada maalinta codbixinta haddaba waxaan ka hor cadaynaynaa baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in doorashada ku dhacaysa habka biometriga ah aysan suuragal ka ahayn inay ku qabsoonto waqtigii loogu talagalay ee ahaa November 27 2020 sababaha aan soo sheegnay dartood sidaa darteed annaga oo xaqiijinayna nooca doorasho ee sharcigu qeexayo oo ah biometriga isla markaana tixraacayna howlaha mudaysan ee sharciga ku xusan waxaan cadaynaynaa in ay doorashada ku dhacayso nooca biometriga ah ku qabsoomi karto muddo 13 bilood ah
oo ka bilaabanaysa Julaay 2020 kuna dhammaanaysa Agoost 2021. noocan wuxuu ka duwan yahay kan sharciga uu xusayo ee biometriga ah dhanka waqtiga iyo qarashkaba, waxaana diiwaangelintiisu ku salaysan tahay in aan la isticmaalin biometric. codbixiyaasha waxaa lagu diiwaangelinayaa gacanta isla maalinta codbixinta iyadoo la adeegsanayo diiwaan qoraal ah same day manual registration. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xildhibaanada golaha shacabka waxa uu uga mahad celiyay ansixinta 13 senatar oo gobolka Banaadir ku metelaya aqalka sare. madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahad celiyay guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka tixgelinta iyo fulinta codsigii madaxweyne ee ku aadanaa xaqiijinta matalaadda siyaasadda gobolka Banaadir. golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa ay ka jawaabeen dareenka shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan rajada bulshada caasimadda. waa guul weyn in Muqdisho ay yeelato qoonto ku saabsan matalaadda aqalka sare, waayo waa caasimadii qaranka, waa astaanta dowladnimadeena, waana muraayadii dalka, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka codsay xildhibaanada Soomaaliya iyo guddiyada weegista dastuurka inay ka shaqeeyaan sidii maqaamka caasimaddu u noqon lahaa mid cad inta lagu guda jiro muddaxileedka golayaasha sharci dejinta. sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu adkeeyay in matalaadda siyaasadda gobolka Banaadir ay ku yeelanayo aqalka sare mid adkeysa midnimadeena, taabagelisana dib u dhiska dalkeena. maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa waxa ay sheegeen inay iska kaashanayaan arrimaha ammaanka iyo horumarinta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. maamulada Puntland iyo Galmudug muddooyinkan bay iska kaashanayaan arrimaha ammaanka iyo horumarka magaalada Gaalkacyo ayaa madaxdoodii ugu sareysay Waddan iyo Qoorqoore waxa ay ku kulmeen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ka gadaal markii madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu martigelin ka helay degiisa Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha Galmudug ayaa sharaxaad ka bixinaya kulanka labada dhinac. shir runtii la dhihi karo wuxuu ahaa shir miro dhal ah, guul ah, oo nagu soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland walaalkay Siciid Dani iyo xukuumadda Puntland, aniga iyo wafdi ballaaran oo ka kooban xukuumadda dowladda Galmudug iyo xubno kale oo siyaasiyiin iyo isugu jira madax kale. waxaan wada hadalnay sida madaxweyne Siciid sheegay qodobo muhiim ah. dhinaca kale madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa qudhiisu waxa uu yiri waxaa maanta looga lafogaray shirkan hordhiciisii uu maanta bilowday, guddiyo farsamana socon doonaan. waxaa looga hadlay arrimaha amniga, arrimaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta, iyo arrimaha la xiriira kobcinta dhaqaalaha iyo iskaashiga dhinacyadiisa guud. wuxuuna runtii ku soo idlaaday wejigiisa koowaad guul iyo is-afgarad laga gaaray dhammaan mawaadiicdii laga wada hadlay oo si midaysan looga wada qayb qaatay. waxaana rajaynaynaa inta dhiman in uu sii socdo, isagoo shirkan uu ka horreeyay shirar badan oo gogol xaar ah oo muddadii u dambeysay wasiirada labada dhinac ay soo wadeen, oo mirahoodii dhinaca amniga ah la taabanayo, khaasatan magaalada Gaalkacyo iyo dib u heshiisiintii Bandiiradley iyo midda hadda ka furmaysa Galdogob iyo waxyaabo badan oo runtii ifafaale wanaagsan ah. kulanka madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayaa ujeedkiisu lagu sheegay iskaashi la xiriira sidii ay labada maamul u xoojin lahaayeen amniga, dib u heshiisiinta iyo siyaasadda labada dhinac. guud ahaanba daawadayaal intaas waxaa noogu eeg wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya.